waayihii iyo sheekooyinkii garaad wiilwaal. dhegaystayaal, malahayga sheekooyinka la yaab kale ee wiilwaal loo saariyo kuwooda ugu caansan waxaa ka mid ah tan ay Soomaalidu u taqaan dibiga naasa adag. waa sheeko ay maahmaahi ka hadhay isla markaana inoo iftiimin karaysa siduu mar walba badbaadada naftiisa isha ugu hayn jiray iyo guud ahaan gacantii birta ahayd ee uu ku maamuli jiray dadkii uu u talin jiray. waxaa la yidhi wiilwaal waxaa la walaal ahayd gabar yar oo ay isku bah ahaayeen, xigaalada kale oo idilna uu ka soo dhowaysan jiray. mar walba isaga ayay la socon jirtay, isaga ayay xoolaha la dhaqaalayn jirtay, gaar ahaan intii aanu dhuubka boqortooyo hanan ee garaadnimada aan loogu dhawaaqin. haddii uu reeraha dhex joogo iyo haddii uu bulsho lo-aadda ku maqan yahayba, isaga ayay gacanyara u ahaydoo isaga ayaa agihiisa lagu arki jiray. waxay arrini sidaas ahaataba waagii dambe ayay gabadhii kortay. tuur bay muddoba lahayde maalintii dambe ayay tidcatayoo ka wiratay. waxay noqotay gashaanti guurgal ah oo sugaysa ninkii ay timahaas u furfuri lahayd. waxay soo baxday inan qurux dumar lagu wada kuunyey iyo bocor aan indhaha laga qaadi karin. xilligii la xodxodan lahaa oo guurkeeda ay barbaartu u tartami lahayd ayay gaadhay. sida gabdhaha la aynigaa ee ay isku filka yihiin ayay waxay u bislaatay ragga gayaankeeda ah maalintii ay ka dhex dooran lahayd kii ay oolidiisa noqon lahayd, dabadeedna ay carruurta isu dhali lahaayeen. hase ahaatee taasi siday filaysay uma ay dhicin. gabdhaha waalkeeda ah halka habeen iyo dharaarba ay barbaartu ag dhooban tahay, iyada midkoodna kuma soo hambaaso, iyada cidina xodxodo uguma timaado. waxaana jiray sabab maangal ah oo iyada iyo dhallinyaradii u soo hawoon lahayd kala fogaysay, oo yaa beer iyo wadna leh oo ku dhici karay in wiilwaal walaashii uu ku soo dhiirrado. yaa isaga oo xodxodadoona inta golihiisa isa soo taaga gabadha soo hawaysan karay. nin waliba warmaha wiilwaal intuu ka baqay ayuu walaashiisna ka maarmay kana fogaaday. wuxuu barbaar waliba door biday inuu xidid kala yeesho oo reero kale uu xila ka doonto. ina ragsa ma quustee wiil baa isa soo kilkilay, wiil baa soo badheeray, wiil baa ku tashaday rag oo idili gabadhaa uu ka maagay inuu isagu isku biimeeyo. mararka ay keligee tahay intuu ilbaadsado ayuu dhagaha ugu shubaa sheekooyin ay dhab u rabto oo isaga mooyee aan weligeed cid kale kula soo dhiiran. lo-oley bay ahaayeene inta badan lo-da dhexdeeda ayuu kula kulmaa kadib markuu hubsado inaan walaalkeed carriga ka dhoweyn. waxay haasaawaanba ugu dambaystii waxay labadoodii ku guulaysteen mid waliba inuu midka kale is-ogolaysiiyo, la isna aamino. ha yeeshee waxay mugdi iyo dhuumasho ku kulmaanba waxaa la gaaray wixii ay muddaba isu sheegayeen markii ay ka dhabayn lahaayeen. waxaa la gaaray markii ay yeelan lahaayeen aqal ay nin iyo ooridii ka yihiinoo ay qoys ku noqdaan. waxaase ka murugtay riyadaas macaanka badan tabtii ay ku rumayn lahaayeen. mar waxay ku tashadeen barbaarku inuu wiilwaal toos ugu tago oo af muggii uu gabadha ku weydiisto. mar labaadna waxay isla heleen wiilwaal inay u daldaayaan oo degaankoodaba ka cararaan, dabadeedna ay dhul shisheeye isku guursadaan. sidii ay midba mar u faranqaynayeen ayay ugu dambaystii waxay istuseen in labadaa talaba ay maankooda ka saaraan ayna iska iloobaan. waxaa u caddaatay inaan midina suuragal u noqon karayn. maxaa yeelay waa mare waxaa hubaal ah inanka guurdoonka ah inaan naftu in badan ku sii jirayn hadduu geesinimo iska dayo oo inta wiilwaal hor fadhiisto uu walaashii ka doono. wuxuu u qaadan lahaa inanku inuu isaga isla soo simaayo, markaasna kurka ayuu hor dhigi lahaa. dhinaca kale wiilka iyo gabadhuba waxay garan waayeen geyigan uu ninku baarqabka ka yahay dhul aan ahayn oo intay isku guursadaan ay kaga nabadgeli karaan kuna dhaqmi karaan. si alla si ay waxyeelaan ayaa laga madoobeeyey. ilaa haddana sheekadoodu waa qarsoodi oo labadooda unbay ku eg tahay. cid kale oo la ogi ma jirto. cid kale oo ay arrimahooda kala tashadaanna lama arko. maxaa yeelay waxay ka baqayeen haddii la ogaado inuu wiilwaal maqlo, dabadeedna uu qorshahooda dhexda ka kala jabiyo haddii uusan dilinba. ugu dambaystii
waxaa tala keentay gabadhii oo jacayl darani uu ka saayid caleeyey. dhowr cisho oo isku xigta ayay barbaarkii waxay ka dhaadhicinaysay walaalkeed wiilwaal oo ifka saaran inaan guurkoodu sina meel mar u noqon karin. markaas buu ku yidhi, ma waxaad u jeedaa inaynu iska sugno inta uu ka dhimanayo? markaabay ku jawaabtay, maya maya, dhimashadiisa ma sugi karayno. inankiibaa inta su-aal kale ku celiya ku yidhi, maxaynu haddaba yeellaa? dabadeedna iyada oo aan la gaban ayay ku tiri, waa in la dilaa oo weliba aad adigu gacantaada ku dishaa. mar keliya ayuu gabadhii ku dhaygay oo isaga oo aan isogeyn waxa uu la soo booday, dil ah, wiilwaal dilbaa, yaa beer iyo wadnale oo ku dhaca, yaa sadagnaan ka heli kara. markaas bay tidhi, hoy nin baa alla kaa dhigaye, walaalkay goorta uu degan yahay haddii aan kuu sheego soo ma dili karaysid. wuxuu ku jawaabay, oo heedhe miyaa lagu maray? yaaba arkay wiilwaal oo dagan, miyaad imalgaysaa? waxay tidhi, aniga ayaa arkay oo aqaan goorta uu degan yahaye adigu nin ma tahay. kolkaas buu isaga oo aan ku qanacsanayn talada ay soo jeedinayso waxa uu weydiiyey, oo waa goorma goorta uu degan yahay? waxay ku jawaabtay, waa fiidkii, xilliga ay lo'dayadu golaha u soo hoyato ee si uu u liso uu weelka u qaato. badanaa isaga oo hubkiisa dagaalka gacanta bidix ku wada haysta ayuu lo'dana midda midige ku lisaa. waxay ku soo gebagabaysay, arrintuusa bar walba sidaas ma aha. waxaa lo'dayada ku jira sac tood ah, xoog badan, daddil ah, si loo maaraana ay dhib tahay. sacaas oo lagu magacaabo naasa adag wuxuu ku irmaan yahay oo lagu maaraa dibi uu dhalay oo isna itaal biiran ah, sida hooyadiisna aan wax qaban kara ay jirin. haddaba marka uu sacaa lisaayo oo keliya ayuu hubka oo dhan meel iska dhigaa, waana marka keliya ee uu degan yahay adiguna aad dili karaysid. sidee haddaba taladaas iyada ah uu inankii kaga jawaabay? maxaase xigi doona? bal wax dhowr. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga. waa inuu toddobaadka inagu soo fool leh iyo dhammaystirka sheekada dibiga naasa adag, hadduu eebba idmo.